garanaysaa fanaan ah oo runtii heeso badanna samayn kara oo ummadda in badan meelgaanin kara isaga dee kulla mas-uuliyad weyn baa saaran aniga waxay saaran inaan soo dhaweyno aniga iyo bulshadii ila hawlgashay raggii dhammaan hawshan ila shaqeeyey inaan soo dhaweynaan saaran laakiin isaga mas-uuliyadda saaran waxaa weeye 9 saacadood oo xiriir ah bulshada u imaan doonta maaweelinteeda waa mas-uuliyad isaga saaran annaga laakiin inaan u qabanno isaga iyo bulshadii isu keenno meel isugu keenno waa annagaa dabaalan qaadnay waana mas-uuliyaddii aan qaadnay annagu annagana saaran wayna hirgeli doontaa insha allahu tacaala ka war marka dad badan waxay isweydiinayaan maadaama keligiis aflaanta jiri jirin oo gabdhay la soco jireen safarka ma gabdhiha ku weliimaysa waa keligiis safarka masdiir hadda waa isaga keliya oo noo yimi haddee waxaan u malaynayaa goosan baa maqan oo idil iyo asar la-aantood inuusan igu soo gaareen baan u malaynayaa dabcan waxay la tahay waa wareysan doonaayo midhaa safarka dambe iyo diyaaradaha dambe ku qoran yihiin aada maasanta waa tahay ugu dambeyn aad u aada mahadsan ninkan computer magaciisa la yihahdaa magacan basdiirna adaa u bixis dad badanaa ku daawanaya su-aashaasna ka dhex guuxis magacaas maxaa ku xulatay sideena kugu maaday maadaama dad badan oo majaajilistayaal oo afrikaan iyo dunida joogaan in ninkan ka xulatay sidee kugu dhalatay magacaas aduu basadaan hadday aragtid maadaaba u joojinaya horaad kasoo qofaysaa waa dhahaysaa basadiir baa dhahaysaa waa basaxeer baa dhahaysaa marka u joojin maysid mar haddaa magaca madaxaad arkaysid u joojin maysid marka horaad kasoo qabanaysaa magacaas taasaa fududaysay oo hirgelisay inaan garboon soo qabto magacaas cajiibkaayo oo maanta oo caanka ku yahay waxaan ka rabaa subxaanallah hal mar waxaan rabaa tan waraysi ahaan ma u baahno laakiin waxaan rabaa shir jiraa'id ahaan caadina oo heshid muqdisho kusoo dhaweynay basadiiraan sugayna waa sidaas waa saan waa inaan tiraadada rabaa macnaha si caadi ah oo heshid ama aan waraysi lagu waraysanayo maahan kan oo si caadi ah may markor kordhay dib ma lahan hadduu hormariyo xataa hadduu duuba karnaa wax ay marka lagu celi ninka waxayna jarjaranaya hadda ku ceshadahay عادي لو بلا بس عدك الله الله سماه حربا أنا كول بحسدنا بس الدير سويسين قبلتين إنه مقدشة ما أنت سودوس أنت سكر ربع شير جرايد أهم سودو بسم الله الرحمن الرحيم ما أنت عادي هذا ما السلام يا أصحاب وقت بدن وقت الفضاء أفضل بمقام تقول لي السلام يا ولبا أنا قلت بس الدير كتب جون مقام بسقف السلام يا وحاول ورباحيته maamulka ila shaqeynaya aniga oo runtii intaas maaragta hawshan nala fulinayay maamulka hotelka sidoo kale kambaniga fisid oo isaguna qayb ka ahaa magaranaysaa in oo wax nala fududeeyo oo wax nala soo dhaweeyo oo hotelka nala qamaqaadiyo oo gaadiidka nala qamaqaadiyo oo runtii isku baridka noo sameeyey warbaahinta iyadana sidoo kale aad iyo aad aan u salaamaya halkan waxaanu dee maalmahaaba u joognay muuqda su-aal ka dhan mar haddii basadiiriyaa ku fadhiyo waxaa weeye waa dhan tahay macnaha barnaamijkan ka hadlayno waa wax iska cad marka yaantan ba dee waxaan joogay magaalada muqdisho waxaanan ku sugayey inaan saaxiibkii basadiir kusoo dhaweeyey magaalada muqdisho maantana way dhacday oo ilaahay waa noo suurageliyey aniga iyo asxaabtayda inaan kusoo dhaweyno magaalada muqdisho mar kale iyo mar kale waxaan u mahad celinayaa أصحاب فرقترسا وأنا مرة رسول يسوع لويسي إمين كانوا وحول بأيجو مارتا إلهي كسبوا نرف بدي سدا صاحب في حجك حتى أفري حكم ولي جماعة حسكافي وتعصبنا وإحنا الدولي أنا يرى بدنا أدو ما تريم كرو كمبري كنا أورانو شيء في سيد أو مارتا غير شيء جديد كيسوع لوينتا oo maaragta dalxiisayaasha si fiican runtii noola qaabilay isaguna sidoo kale laamaha ammaanka taliyayaashii soo dhaweeyey waa aad u mahadsan yihiin wax walba nala fudeeyey marka waraysigan inta shirkan intaas u daaran yahay maanta وما شانتي بس يا كينج بوس قريب الصومالية شيء صومالي عادي بدي مركز سينا عادي هوا شكرا أنا نرجع وقت سوية اوكي first
you can speak little English or Kiswahili. Okay, English and Swahili changanya. Okay. Okay, first, how Somali look like before you come in, what you believe in here? Yeah. Yeah. Cha kwanza nafurahi sana Somali. Nisingefahamu mimi, siwezi nikajiita Kinkusi bila yeye kunifanya nisijulikane Somali. Amefanya big kazi, amefanya big job mpaka leo Somali nimepokelewa airport kama rais, kama president. Wanaotusupport wamekuja pale airport, wametusupport kweli kweli, wamenikaribisha Somali. Nimeona Somali kubwa imejengwa na nipo Somali kutokana na yeye, ndio amenifanya nifahamike Somali. Na siwezi nikasema kwamba Somali nipo na mtu mwingine, bali kwa sasa hivi rafiki yangu, kaka yangu, dada yangu, ndugu yangu ni yeye. Ndio anajua kula kwangu, kuishi kwangu mpaka kulala. Na maana mtu atakaye ni face mimi inabidi amface kwanza yeye. Kile face. Kama una business yako lazima umface kwanza yeye, ndio utamface. Nashukuru sana kwa mapokezi ya Somali. Wametupokea vizuri sana kiukweli, mpaka mida hii na siamini kama kweli Somali nilikuwa nafahamika hivi. Unanisoma? Siamini kweli kweli. Acha ma Facebook, acha YouTube, lakini love ya pale airport is big love. Na hata yeye nashukuru sana my friend. Huyu amefanya mimi kiukweli, amefanya mimi Somali nionekane mtu mkubwa na uzito. Inshallah Mwenyezi Mungu atujalie safari ndefu. Sema amini. Sema amini wewe. Kweli amini. Yeah, okay. Yeah, tunashukuru sana. Yeah. Thank you. Farhan, you with Farhan today. So Farhan, how it is for him? I can tell to English to Swahili. Yeah, both unit. Swahili to English. Oh yeah. Hebu swali lako unasemaje? Yeah. Today you with Farhan. He's your friend. Before, how introduced before? Yeah. Before Farhan tulikuwa sio marafiki. Okay. Tulikuwa sio marafiki. Nilikuwa simjui. Kiukweli brother amefanya kazi kubwa, big job. Yeah. Kwanza amefanya jina la Bathadil kujulikana Somali bila mimi kujua. Yeah. Nilikuwa sijui chochote kuhusu yeye. Lakini by the way baadaye nikaja nikamfahamu kama ana translate video ya Kiswahili kwenda Kisomali. Bro, is big job. Hata Tanzania wanamjua. Hakuna channel Afrika ambayo ina translate video kutoka kwa Kiswahili kwenda kilugha chochote ambayo inafahamika kama channel ya Afrika. Tuseme tu kweli. Unanisoma? Kwa sasa hivi mpaka nikaja nikamfahamu, mpaka tumekuwa hivi bro, tumepitia vingi. Hatuwezi kuongea ambavyo tumepitia, tunaongea mazuri sasa hivi. Tunaongea matunda tunayoyaona. Matunda tunayoyaona ndo kama mnavyoona hapa Bathadil yuko Somali, mnavyomwona my brother yuko hapa. It's big job. Thank you. No, thank you very much. Very much. Thank you. Thank you.